musharaxa golaha wakiilada gobolka Saaxil Saadad Jaamac Aadan oo u taagan tartanka doorashada golaha wakiilada Somaliland ayaa safar ku saabsan wacyigelinta qaadashada kaarka diiwaangelinta ka bilowday deegaano hoos yimaada degmada Sheekhe. Dadweynaha ku dhaqan deegaanka Hundisa ayaa si weyn u soo dhaweeyay wafdigan ay hogaaminaysa Saadad Jaamac Aadan, waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin qalbi furan iyo niyo furan ku soo dhawaada degmadiina iyo magaaladiina iyadoo oo codkiinuna كأكن ديار اللي كيهاي اللي كسر وينه. سادة جامع عادن وحين نقشر رحنتهاي قبل كي ساحل. هرايا يدين كشكتاي يدو أهداف تديو هردعي دي هذا الكار. قدرودان أو عاد مقرنا إنسان يدين دافع وقت كقادة شدو أفرد عشاء يا سيدا عن ورك كوهينو أفر عشاء اللي نسيي أفر تعش كقادة شدو اللي نسيي. وإننا ندافين. حدودنا وحكم موتشكرتان كارك مركا قالتان استوان جلسان وحن ندينكو بورينيا إن كارك قالتان أو استوان جلسان سيدنا ندت كنا أين وحرق يبصنو برعو مشرح با توجا برلمانكا أنت توجتا يسقى كفلا لكن وحن دوني عد كنا سنان ونقلوا من أين حدودنا كم موتشنو حدينو ما أنت كارك قادنو وإن استوان قالوا عد كستان وين سكعين كرنا ديجانا وين هاي intaasi kadib wafdiga ayaa waxay u ambabaxeen degmada Sheekh oo kala kulmay soo dhaweyn ballaaran. Haween aqoonyahan halkaasi ka hadlay ayaa taageero u muujiyay musharax Saadad Jaamac Aadan. haweenka haday dhalinyarada tahay halkaad ku raad dhaqaaqsay waa halkan aad ku weynaatay halkaas laga soo dhaweynayaa ka waran degmada adabaan Saadad leena mar labaad ugu ridaynaa sidaasaan ugu ballan qaadayna hadii la yiraahdo waxaan Saadad wali soo dhaweynaynaa degmadaadii bay timi ma aha Saadad mid qof meel kale ka yimi degmada Sheekh ayay u dhalatay waana u hiilisaa waa deegaankeedii Saadad inay soo dhawaanayeen codka labadaba la siiyo way nu ballan qaadayna kabcada rasuulku ma gubanine Saadad codka miyaa la siinaynin yaa kale la soo dhawaynaynin kulay Saadad wax badan bayna la qabatay barbar markaan tagno maantana waxaan leenahay cod baad nooga baahatay codkaaga diyaar baan ku nahay maamo ku soo dhaw degmadaadii maanta codka Saadad baa iskala ayay la tahay gobolka degmada Sheekhna ka bari mayso codka markaa waxaan leeyahay Saadad Jaamac aad loo soo dhaweeyo codkana hal la siiyo dhalinyarada iyo haweenka codka yaanay naga bari haweenkana mid baan leeyo golo baarlamaan kumayna lahaan jirin hadeen raay gobolka Saaxil maanta codka hal la siiyo Saadad maanta codka hal codkana haddii rabbi ka dhigo inaad codka noogu hiilisaan Saadad codka ugu hiilisaan Saadadna u baqan maysaan qof maanta idin barayana maaha waad garanaysaan Saadad codka ugu hiiliya Saadad codka ugu hiiliya waxa kale aan sheegayaa diiwaangelintana inaad qaadataan kaadharka oo gobolkiina Saaxil ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay musharax xildhibaan Saadad Jaamac Aadan oo bulshada ku dhiirigelisay inay qaataan kaarka diiwaangelinta. Sidoo kale waxa ay ka hadashay qorshayaasheeda haddii ay ku guuleysato kursiga xildhibaanka golaha wakiilada Somaliland. waa ku mahadsantiin soo dhawaynta ay soo dhaweyseen waxaan u sharaxanay anigu golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Somaliland ee gobolka Saaxil waxaan maanta idin cadeynayaan idin sheegayaa reerkii aadan ciise reeri dalanay aniga ay doorteen ay xumaamaden baan farxadaasaan idin sheegayaa dhahan cududda iyo xoogayga xeebtii bay ku maqayanay ka ololeynayaan aad baan iyagana ugu mahadcelinaya marka labaad iyo mar saddexaadba waxaan ogahay inay farta ay igu hiilinaysaan baan ogahay haddii ilaahay gaarsiiyo maxaynu laakiin hiil ku helaynaa markaynu kaarka qaadanno ayaynu cid walba ka badinaynaa degmadeenna Sheekhna soo baxaysa inuu noqonaynaa haddii ilaahay na gaarsiiyo fartaasaynu cid kasta ugu hiilin karnaa waa inaynu hortu kaarka qaadanaa maanta waxaynu socday inaan kaarka qaadanno oo aynu isdiiwaan gelino si aynu codkeenna u midayno oo degmadeenna Sheekh ay u noqoto degmo doorashooyinka 22 degmay ka mid tahay ay ku noqoto waa la tartamayaa waxaan doonayaa maanta inaynu tartanno oo degmada Sheekh tartanto oo codka aynu ugu hiilino musharaxiinteenna hadday golo baarlamaan tahay iyo hay'adday golo deegaan tahayba ayaan maanta u sheegayaa golaha baarlamaanku haddii ilaahay nagu guuleysiiyo oo aan tago saddex qodob muhiim ah golaha wakiilada marka aad doonayso waxa weeyaan mujtamacii aad ku soo doortay oo wakiil ka tahay waa midda koobaad tan labaadna waxa weeyaan
xeerka doorashada ee baarlamaanka ama xeerarka jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu ansixiyaa golaha wakiilada saddexaadna waxa weeyaan miisaanad sanadeedka jamhuuriyadda Somaliland ma lagu ansixiyaa taafraada ay soo raacdana waxa weeye monitoring and evaluation dabagal xeerka ma hirgalay halka caafimaad ma laga qabtay biyo halka ma loo sameeyay waxbarashada ma socotaa arrimaha bulshada wax ma laga qabtay weeye horta baarlamaanku inta waxaan rajaynayaa degmada Sheekh inuu uga soo bixi doono oo darajada u raadin doono haddii Ilaahay naftay ku sumo maslax salaba 8 telefishinka Ariel Berbera